maanta waxaa safar u nahay magaalo xeebeedka Malindi gaar ahaan deegaanka caanka ah ee Marava. Haatan waxaan ka ambabaxaynaa magaalada Watamu. Safarkayga maanta waxaa igu weheliya asxaabteyda. Waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalo aad u xiiso badan. Marava oo ka mid ah meelaha dabiiciga ah ee ugu yaabka badan dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Kilifi ee u dhow magaalada Malindi. Goobtan waxaa loo yaqaanaa Marava Hills Kitchen, halka dadka deegaanka ee Giriyaamaha ugu yeeraan Nyari, oo micnaheedu yahay meesha iskeeda u duntay. Marava waxay qiyaastii 30 ilaa 40 kiiloomitir u jirtaa magaalada Malindi, waxaana lagu yaqaanaa dooxooyin qoto dheer, dhagaxyo midabkoodu kala duwan iyo muuqaalo u eg buuraha iyo dooxooyinka meeraha Mars. Ee dhagaxyada ayaa si gaar ah u soo baxa marka qoraxdu dhacdo, taasi oo ka dhigaysa meel aad u qurux badan oo sawiro iyo muuqaalo laga duubto. Laakiin dadka deegaanka waxa ay leeyihiin sheekooyin kale oo xiiso leh. Mid ka mid ah halyeeyada ugu caansan ayaa sheegaya in halkan ay degnaayeen qoysas maalqabeen ah oo ku takrifalay nimcooyinkii ay haysteen ilaa ay caanaha xoolahooda ay ku qabaysan jireen. Ilaahay ayaa ka carooday kibirkooda, waxayna dhulka lagu liqay tuuladii ay degnaayeen. Dadka deegaanka waxa ay rumaysan yihiin in dhagaxyada casaanka ahi ay astaan u yihiin dhiigga, halka kuwa caddaanka ahi ay astaan u yihiin caanihii lagu takrifalay. Maanta Marava Hills Kitchen waa goob dalxiis oo caan ah. Waxaa sanad kasta soo booqda kumanaan qof oo ka kala yimaada gudaha Kenya iyo caalamka. Dad badan ayaa ku tilmaama in ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu qarsoon uguna quruxda badan xeebaha Kenya. Haddii aad xiiseynaysan muuqaalkeena, fadlan channelka subscribe dhe like saar, sidoo kalena la wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan wixii fikir ama talo ah qaybta hoose noogu reeb. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaaladii aad nooga barateen inaan idinkiga soo gudbiyo Sayid Abu Media. Waxaan joognaa magaalada Malindi ee dalka Kenya. Halkaas ayaan soo aadnay aniga asxaabteyda safar dalxiis ah inaan muuqaalo aad u xiis badan idin soo gudbino. Waxaan rabnaa inaan aadno waa meel aad u qurux badan. dalxiisayaal fara badan ayaa halkaas yimaada si ay sawir ugu galaan. waa meel taariikh ku duugan. waxa la yiraahdaa Marava. insha Allah hadda waxaan saaranahay wadadii markaa oo aan ku tagi lahayn Marava. isla socod wanaagsan ilaa ay dhamaadka muuqaalka nala jooga. waa tahay saaxiibayaal, ugu dambeyn waxaan imaanay buurta oo lagu magacaabo Marava. waxaan gali doonaa gudihii ayaan aadi doonaa insha Allah. nala socda. halkan waa halka lagu bixiyo lacagta. waxaan isla soconaa 4 qof ayaan ku soconaa team. qarashka waxa way waxaan ugu dhaheen 1500 Kenya money weeyaan. intaas lagu galaa. gudihii ayaan aadayna insha Allah. Welcome. Oh, Bibi. Hi, asante. Welcome to Marava Hills Kitchen. My name is Safari. I am here as a comment guide. You're most welcome. Thank you This so is much. Marava Hills Kitchen. Thank you so much. waxa uu ka mid yahay shaqaalaha halkan ka shaqeeyaan. arday aad u fara badan ayaa halkan jooga. waxaa looga sheekeynaya taariikhda halkan ay ku duugan tahay. baska iskuulka waa kana. waana secondary weeyaan. secondary iskuulka waaye ardayda dugsiga sare. miale inachapa hapo chini, hizo madini zinachomwa, unaelewana? So zikichoma ndo zina produce heat, sawa? That's why ukiteremka huko chini hiyo temperature iko juu, kwa sababu zile minerals zimechomwa, tunaelewana? Andikeni. hadda waxaan joogaa buurta Marava. buurtan waa buur taariikh ku duugan. waxaa joogta ardaydii oo markaasi dugsiga sare ay dhigtaan magaalada Malindi. waxaa loo sharxaya loogu sheekeynay taariikhda buurtan ay ku duugan tahay. waa meel aad iyo aad u qurux badan. kumanaan dalxiisayaal ayaa soo gaara sanad kasta si ay wax badan ugu ogaadaan taariikhda Marava ay ku duugan tahay. So this place is known as Marava Hills Kitchen. This is because during the day, down there the temperature goes high. Sometimes from 30 degrees to 50 degrees down there. That's why it is called Hell's Kitchen. But also there's a legend story which a long time ago here used to be flat and used to be a village.
And the people who are living here, they were Giriama people. Giriama. Yeah, and normally used to have a lot of animals. All the cattle, all the donkeys. And normally the animals used to produce out of milk. And then they normally use the milk to wash the body, to cook with milk, doing everything with milk. Yeah. While around the village here, there were poor people who were in need of help from them, but then they did not help the poor people. So one time, the poor people who were living around the village here, they had a strange sound from the place, of which that was a sort of punishment from God. So all these people who were living here, they all vanished. And then it started heavy rain, whereby they were all washed to the river. Down there, we have a river called Medina. So they were all washed down to the river Medina, and the river Medina pours the water to River Sabaki to the Indian Ocean. That's a legend story. But about geology story, we talk about erosion because of heavy wind and heavy rain 3,000 years ago. So geologically for the red color is for iron. The red is for iron, the white for calcium, the yellow for sulfur. But to the legend story, the red is for the blood of the animals, the white for the milk of the animals, and yellow for the animal dung. والله brotherkay halkan ninka safari la dhaho wuxuu noo sharaxay horta ma sha Allah taariikhda halkan shaqaalaha uu kamid yahay oo halkan ka shaqeeya waa turjumaan marka oo luqad Ingiriiska ku hadla dadka cadaanka markay yimaadaan ayuu u sharaxa muddo badan ayuu ka shaqeynayay marka halkan safari buurtan la yiraahdo maxaa la yiraahdaa Marava waa buur oo taariikh fog leh waaye sida horadii kugu soo sheegay Giriyaamada halkan xoolo ku dhaqan jireen halkan meesha waxa gaartaa ay sheegay kuleelkeeda ay sameeyeen 50 degree kuleel caadi ahaan hadda in yara joogna qoraxdii waxaan dareemay kuleel aan caadi ahaan waa dhidideena marka waxa waaye muuqaalkeena kulay intaan kuma eko waxaan tageynaa haduu Ilaahay ka raali noqdo Malindi gudaha townka magaalada ayaana gali doona ama faras magaalaha magaal xeebeedka Malindi waxaa degan muslimiin aad u badan gobolkan xeebta la yiraahdo Mombasa, Kilifi, Watamu iyo Malindi waa muslimiinta ee Kenya ugu badan ayay degiin ilaa Lamu marka waxa ugu weheliya safarka Fuad oo ah nin dhalinyaro ah marka Soomaaliya oo waxaan iska soo raacnay magaal xeebeedka Mombasa ee dalka Kenya Fuad marka hore ku soo dhow Sayid Abu Media wadaway Sayid Abu ما شاء الله ما توحاواي ودالحيسنا waxaan joognaa magaala xeebeedka Malindi gaar ahaan River Helsing waa aad iskaga dalxiisana ani asxaabteena Fuad waa nin waxa tahay dhowr wadamo tagay as Asia kamid ah Afrika sidoo kale dhowr wadana ka tagtay marka safaradaada kan kuwii aad gashay kan maxaa wallahi waxa isdii karaa waa safaradeyda safarada ugu quruxda badan so Asia kale dhowr meel ka tagay laakiin safarada qaar waxay leeyihiin waa waxyaabo fara badan so Africa markii loo meelaha ugu dalxiiska badan ugu quruxda badan ee kamid tahay Kenya gaar ahaan xeebaha Malindi Mombasa way badan yihiin marka waxa waaye Watamu so anaga marka waqtiyo badan ku qaadanayna waxa isleeyahay safarada hala safro damo safarto you have to more experience way aragnimad ka qadaysaa xaqiiq weeyaan safarku mar walba waxay u fiican tahay magaalada inaad ka soo baxdo as health as experience damo waxa waa dad badan traditional badan kala barnay dadyaabo kala duwan caafimaadkan u fiican tahay so qof kasta waxa dhila aniga hala safro dadka stress ka dareemo halkaan meesha jawi ku qaada meesha qofka arko quruxdeeda waa wax isleeyin viewgeeda qofka comfortable waxyaabo badan uu dareemaa ma garat so it's a very beautiful place so ilaa haddana waxa sii wadanaa meelo badan oo dhiman Malindi gudaha Malindi noo dhiman oo beachka Malindi aan idin sheego waxa Malindi ku yaala bridge weyn ayaa ku yaala oo badda gudaheeda oo ku dhaxyaal marka xagaasna waan booqan doonaa